Pinterest wuxuu yahay waa sharaxnay sida loo sameeyo waan ka hadalnay profile sida loo design gareeyo waan ka hadalnay business sida loo bedelo waan ka hadalnay sida video ama sawir loo soo geliyo waan ka hadalnay dabcan muuqaalka waxaan kuugu soo dhameeyay Pinterest waxa uu yahay wax dambe ka maqan oo meelaha aad ka raadi doonto ma jirto السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo la joogteena waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow maanta muuqaalkeena waxaynu ku qaadan doonaa tixanihii noo socday ee ahaa SEO traffic ama sidee loo helaa free traffic maanta waxaynu qaadan doonaa baartiyadii noo socday baarta kamid ah waxaynu ku qaadan doonaa website-ka magaciisa la yiraahdo Pinterest dabcan website-na wuu leeyahay application wuu leeyahay wax walbo aan idin la wadaagayo waxaan isku dayaa ama aan ku dadaalaa in telephone iyo computer labadaba lagu isticmaali karo maadaama dhalintu inta badan telephone ay isticmaalaan application ahaan waad u isticmaali kartaa sidoo kale haddaad computer haysatana website ahaan waad u isticmaali kartaa xitaa telefonkaaga website ahaan waad ugu isticmaali kartaa laakiin inta badan application-ka sahlan hal mar la soo degaysaa kadib browser kicis iyo ma baahnid okay hadaba ayaan ku sii dheeraan dabcan muuqaalkeena waxaynu ku baran doonaa afar shay muuqaalkeena waxaynu ku baran doonaa afartan shay number 1 waa maxay Pinterest qofku wax markuu isticmaalayo waa inuu concept ka haystaa oo wax ka fahansan yahay waan ku sharxi doonaa insha Allah number 2 waxaynu ku qaadan doonaa sidee loo sameystaa Pinterest waa very important number 3 waxaynu ku qaadan doonaa mid inta badan dhalintu ay ku wareersan yihiin oo markaas qof walba uu la yahay sida loo sameeyo taas oo ah sidee business loogu bedelaa Pinterest account-kaaga dabcan hadii account-kaaga aadan business u bedelin lama soo kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga ay inta ku soo booqatay inta click oo heshay inta website-kaaga aaday dhammaan ma arki kartid hadii aadan business u bedelin waxaan ku bari doonaa insha Allah sida business account loogu bedelo number 4 oo ah sidee Pinterest sawir ama muuqaal loo soo geliyaa idna waa very important dabcan waxaan u dadaalayo aan u diidayo waqti aan u bixinayo waxay tahay dhalintu inay wax walbo step by step ay u fahmaan horana waxaan idinkugu sheegay janaalkan inaan idinkugu soo gudbi doono wax walbo oo markaa daaha gadaashii ah oo dhalintu in badan laga qariyay dabcan anigu maadaama aan juhdi iyo dadaal aan ku bixinayo adina waxaan ka rabaa inaad igu taageerto igu dhiirigeliso subscribe igu taageerto sidoo kale muuqaalka like saarto muuqaalka oo like saarto wuxuu naga caawinayaa inuu gaaro asxaab fara badan hadaba muuqaalkeena si aan u guda galno waxaan ku xasuusinayaa janaalka inaad si sharaf leh subscribe inoogu saarto sidoo kalena muuqaalka ay noo la gareyso asxaabtaadana aad la wadaagto inta aad awoodo 1 iyo 2 iyo 100 iyo in ka badan ba saaxiib waxaan guda galeynaa muuqaalkeena insha Allah hadaba waxa sameynaysaa afan inta aan muuqaalka aan bilaabin number 1 wuxuu ahaa waa maxay Pinterest dabcan inta hadda aan muuqaalkan bilaabay waxaan sameeyay account cusub aan sameeyay oo fake ah markaas waxa idinku tusarabo oo aan markaas idin garan waxna aan ku sameeynin account-kan aad arkayso Pinterest dashboard-ku waa sidan marka account sameysto oo qof walba jooskiisa iyo waxa uu doono ayuu halkan ku soo gudbiyaa halkan sida aad u jeedo qofba wuxuu soo gelinayaa fadhi qofba wuxuu soo gelinayaa yani muqaal qofba wuxuu soo gelinayaa sawirkiisa qofba wuxuu soo gelinayaa wuxuu doono fahanteen dabcan waxa laga yaabaa dad wada sheekeysanayo oo markaas yani iscaaynayo ama waxyaalo noocaas inaad TikTok ku aragtay qofkan hadda wuxuu soo dhigay messenger oo soo dhigay wax walba uu tiray adi marka waxa sameynaysaa meeshan sawirka profile-kaaga soo gelinaysaa inta qoraal ku soo qoraysaa qofka ku jawaabo qoraalkiisa ku qoraysaa waxa ka dhigaysaa dad marka jaitan ku jiro oo editing ku sameynaysaa ma fahanteen marka muuqaalka hadii tusaale aan ku sii fiiri hadii kan aad ku dhifato dabcan hadda waa soo gashay Soomaaliya hadii aad ku sii dhifato wuxuu ku geynayaa marka qofkii soo dhigay website-kiisa ku geynayaa marka adina markaas meeshan traffic uu hesho oo waxa soo dhigto qofka website-kaaga si uu aado si aan ku tuso hadda waxaan rajeynayaa horto Pinterest dashboard-kiisa inaad aragteen hadii marka sharaxaad yar aan kaaga bixiyo Pinterest waa website
marka intaasu billion oo views ah hadda million kama hadlayo intaasu billion oo views ah bishii hel ama ay soo booqata kuwaasoo ka imaada almost 50% America, Canada, India wadamada markaas CBC-gooda uu wanaagsan yahay ka imaada. Haddaba website-kan waxyaalaha kale oo ku wanaagsan yahay waxaa kamid ah qaabka wax aad usoo gelinayso ku xiranta haddii qof dadaalay aad tahay oo sawirro badan iyo muuqaalo badan kusoo bandhigayo waxaa laga yaabaa bishii 50k ama 100k in ka badan oo views inaad hesho. haddaba marka waxyaalaha kale ku fiican waxaa kamid ah haddii aad tahay affiliate marketer in markaa linkiga affiliate-kaaga aan baan lagaa saarin oo lagu ogol yahay inaad halkan si toos ah aad usoo geliso. dabcan Pinterest inta yaro basic waxa uu yahay iyo waxa laga helo inaa faanta ayaa rajeynaya. dabcan aynu kasoo gudubno oo aan usoo naqano number 2 oo ah sidee loo sameystaa Pinterest. haddaba si aynu u sameysano Pinterest waxaad u baahan tahay inaad imaado Gmail-kaaga ama markaas meeshii aad ku sameysan lahayd. dabcan anigu Gmail-kan ayaan idinku siiyaa traffic isla asiga ayaanu ku sameyn doonaa insha Allah Pinterest. ila soco muuqaalka ha ka harin. dabcan waxaa jiro dhalinyaro badan oo muuqaalku way daawanayaan ama way ka mashquulayaan marka wixii seeta uma sameynayaan markaas waxay ku dhahayaan ama ku soo qorayaan waxaan way shaqeeyay ama error jiro ama system waxba qaldan. anigu sidaan sameynayo sameeyo kaliya ila soco ha iga harin. haddaba waxaa sameynaysaa inta ayaa waxaa kusoo qori doontaa Pinterest account ama Pinterest kaliya. intaa markaad soo qorto Pinterest kadib waxaad imaan doontaa dashboard-kan uu ku keeni doonaa linkii ugu horeeyo ee ku qoran tahay Pinterest ayaad taaban doontaa. haddaba markaad taabato waxaa kuu soo bixi doona page-kan ama dashboard-kan ayaa kuu soo bixi doono. simply waxaad sameyn doontaa waxaad dhihi doontaa sign up. sign up markaad dhahdo wuxuu ku siinayaa 2 step email iyo password iyo da'daada iyo in markaa Gmail-kaaga aad ku gasho ama Facebook-kaaga. dabcan anigu waxaan ku galayaa Gmail-kayga. aduna markaas waxaad sameyn doontaa midkii markaa kuu fudud ama Gmail ama email ama password midka aad doonto. haddana waxaan isticmaalay Gmail-kayga. halkan waxaynu geli doonaa da'deena. waxaynu geli doonaa insha Allah 70 ama 70 years old. adigu da'da markaa Gmail-ka kuugu sameysan yahay waa inaad ku sameysataa ama ka badan ama ka yar kulle jooska adiga iskala aan 70 iska geliyay. dabcan sidaan ayuu waxa uu nagu dhahay ku soo dhawow Pinterest oo uu noo sameysan yahay already. dabcan halkan waxaa ka dooran doontaa midka aad tahay. haddii markaas aad nin tahay waxaad dooran doontaa male. haddii aad markaas gabar tahay ama naag tahayna waxaad dooran doontaa female. dabcan inta badan kan ma fiicna waa laga wanaagsan yahay. anu waxaan dooranayaa male. inta markaas sameeyo waxaan leeyahay waxa u gudbayaa number 2. marka da'da aan soo doortay haddana qaybtan oo i keenay qaybtaas oo ah markaas luqadaha English iyo Somali. anu waxaan ku daynayaa sida ay tahay waxba kama bedelayo. labada meelna Somali kama dhigayo labada meelna English kama dhigayo. dabcan sida asigoo ii xulay ayaan ku daynayaa. hadda marka meeshaan waxaad ka doorataa wax markaas adiga aragto sawirada markaas oo lagu soo bandhigayo waxyaalahaas. anu waxaan ka dooran doonaa lion sidoo kale score sidoo kale waxaan ka dooran doonaa qodobkan ah kan ayaan ka dooran doonaa shanbaraha. xitaa 5 aan naga rabaa oo 2 mo ayuu dhahay waxaan ku dari doonaa kanaan ku sii dari doonaa sidoo kale waxaan ku dari doonaa kanaan ku dari doonaa. intaan markaas sameeyo dhan ayaan leeyahay sidaa waxaan uga dhamaaday ama aan ku sameeyay Pinterest account. dabcan halkan sa ugu jeedo waxyaalaha hadaan soo dooranayna waa inta badan sawirada halkan ka soo muuqanayo. hadda marka sidaan waxaan ku sameysanay Pinterest account. inteenan u gudbin qodobkeena saddexaad ee sidee business loogu bedelaa ah isla qodobkan waxaynu u sameyn doonaa falanqeyn ama waxaan sameyn doonaa in profile-keena aynu hagaajino. dabcan profile-kan aad u jeedo ma qurux badna waa inaad cover u sameysaa profile u sameysaa description u sameysaa linkiga website-kaaga aad soo gelisaa wax badan ayaa halkan looga baahan yahay.
haddaba marka waxaan dhihi doonaa edit profile si marka aad u edit gareyso profilekaaga. muuqaalka haddii aan 10 second aysan ku gudbin waxaan rajeynayaa in wax walbo step by step aad u fahmi doonto. halkan waxyaalaha ku xusan sida u jeedo intan ayaan naga rabaa inaan buuxino. coverka dabcan by telephone ayaa u saari doontaa, laakiin hadda inta waxaa ka saari doontaa profile ama sawir markaas. anigu halkaa waxaa ku jiro sawirada ku jiro. sawirada halkan ku jiro mid ka mid ah ayaan iska geli doonaa insha Allah, maadaama waxaan ay yihiin tijaabo. dabcan anigu kan ayaan geli doonaa. wuxuu yahay xataa ma ogi oo sawirku uu qarsan yahay mid ayaan iska soo doortay. dabcan intan waan bedeli doonaa oo waxaan ku qori doonaa Somali tutorials. dabcan sidoo wuxuu naqay yani markaas naag oo AI animation ah. hadda marka waxaan sameyn doonaa meeshaan waxaan ku qori doonaa Somali tutorials. aduna sidoo kale يعني last name iyo first name عفوا inakan last name ka dhigayo. aduna sidoo kale waxaa sameysaa waxaa ku qortaa name-kaaga ama magacaaga. intan waxaa sameynaysaa waxaa gelinaysaa profile bio. dabcan waxaad tigi kartaa ChatGPT Simply ama waxaad tigi kartaa website-kii ama application-kii maalin aan kula wadaagayay adi meeshan qatabo. kadibna waxaad sameyn doontaa ama aad soo qoran doontaa profile bio markaas adiga ku gaar ah. haddaad doontana af Soomaali ayaad gacantaada ugu qoran kartaa, haddaad doontana af Ingiriis ayaad ku qoran kartaa. dabcan aan waxaan sameyn doonaa ChatGPT ayaan ku qoran doonaa. طبعا ChatGPT kan waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo weli ku wararsan inay jiraan. waa iska fudud yahay, wax weyn ma ahan oo waa sida in markaas application aad soo furto aad iska xirto kale. dabcan hadda waxaa soo kiciye kaliya browserkayga, kadibna waxaan daaray VPN, kadibna waxaan daaray ChatGPT aan soo galay. waa inta oo kaliya. dabcan aniga halkan waxaan ku baasgareeyay qoraalan watiyo. qoraalkaasoo ah write about us page for this keyword. keywordkaasoo ah weight loss ama needka weight loss. dabcan adigu waxaad ku qoran kartaa waxa aad rabto, kadibna waxaa leedahay send. dabcan intaa markuu kuu qoro in yaraad u baahan tahay oo 2 sadar camal ka badan. 2 sadar markaad sameyso kadibna waxaad sameyn doontaa copy ayaa soo dhax doontaa. dabcan in badan inuu yeelay lama ahan, laakiin waxaan sameyn doonaa intaan ayaan qaadi doonaa oo health wixii ka dambeeya ah. intaa markaa sida u soo koobiyeeyo kadibna halkan waxaan ku soo laaban doonaa marka Pinterest-gii marka aad sameysanayn. dabcan sawirkii iyo last name-kii iyo first name-kii waan sameysanay. halkan waxaynu ku baasgareyn doonaa inta. dabcan wuxuu dhahay 500 oo word wax ka badan ma la gelin karo soo hore kugu sheegabo. dabcan inta ayaan ku simi doonaa we believe afan control set dhibicdaas ayaan ku simi doonaa insha Allah. intaa markaa sameeyo waxaad sameynaysaa halka welcome to horteeda. dabcan welcome to horteeda ayaa waxaad geli doontaa linkiga website-kaaga. soo markaa qoraalka markaa sidan u soo gashato sida hore kugu sheegaba waxaad sameynaysaa meeshaas welcome to horteeda ayaa waxaad ku baasgareyn doontaa linkiga website-kaaga. dabcan hadda linkiga ayaan soo qaatay, kadibna halka ayaa ku baasgareeyay somaliyouth.com soo ujeedo. soo markaa qoraaladii hadana naga batay waxaynu bixi doonaa inta ka hooseysa daad. عفوا marka website-ka inta aad soo gashatay website-kaaga kadibna markaas profile bio ama about-kii aad qoratay, kadibna last name-kii first name-kii sawirkii aad iska hagaajisay inta ayaad imaan doontaa. hadana inta markaas sida u imaado waxaad sameyn doontaa waxyaalaha markaas inta badan aad soo gudbiyay aad kala doorto. inta badan inta badan waxaan ku dayaa sideeda aad doorato. waxaad dooran kartaa he iyo him oo kale ama she iyo her. waxaad soo dooran kartaa midka aad rabto, يعني midka markaas waxaan profile-kan aad ka turjumayso ama aad qorayso markaas midka iska leh. anad waxaan dooranayaa kana dooranaya. intan waxaa laga rabaa linkiga website-kaaga.
طبعا حقنا وان سو غليي انتن وان غلينaya طبعا ادي حدارت انت كليgeed غلي حدارتنا حق غلي laakiin meesha waxa ku qoran add a link to your drive traffic to your website أنا waxaan geli doonaa labada meel ayaan geli doonaa insha Allah adiga marka jooska aad iskale labada meel ama hal meel gasho ama labada meel gasho username ka markaas oo inta markaas yani qaybtan kore oo pinterest.com ka subdomain-ka uu ku sii doono username ka ku raaci doono ayaa waxaan u bedeli doonaa Somali tutorials dabcan waxay kala yihiin name iyo last name iyo first name iyo username kala yihiin wax dhan waxaan ka dhigi doonaa Somali tutorials dabcan adigu saa doonto ayaad ka dhigi doontaa insha Allah inta markaas sameeyay oo profile-kan aan iska hagaajiyay inkastoo sawirka ii saaran sawir qurux badan oo san ahayn waxay raadi doonaa insha Allah mid kale oo ka qurux badan hadii aan waayane waa iska dhigi doonaa insha Allah عفوا سأوجد مقالك ويرجع صوبته ومحمد بدل سويركي ناقة يعني سكيب بدل اللغة أنت أيان سوق الشو إلى ما قرب بدنا سوير كاس مركب ما دام وحي أن هجاتي أمتي يو مجاي يو description كي بيحنا أكل دورتي وحانه دوناش على السيف هذا مركب حانو ديارة بنترست أكونت لما يسترن أو مركب بروفيل كيسة everything أن هجاتي هذا مركو waxaa u guuri doonaa qaybtii saddexaad oo ah marka sidee business loogu bedelaa maadaama business hadii aad u bedesho waxay ka saacideysaa inta bishii views ah heshay maanta inta kusoo booqatay wadamaday ka yimideen inta kale oo heshay inta website-kaaga aaday waxaas oo dhan waxaad ku ogaan kartaa inaad u bedesho business account dabcan marka waxaan isku bedeleynaa business account ayaan isku bedeli doonaa insha Allah soo marka si aad business account ugu bedesho waxaad u baahan tahay kaliya inaad inta timaado falartan ayaad fur doontaa kadibna intaadan profile-ka ku dhifanin ama add account aad dhihin halkan waxa kaaga muuqdo convert to business account ama to business halkan ayaa taabo doontaa insha Allah halkan marka sida u taabato marxaladii markaas oo business uu isku bedel lahaa account-kaaga ayaad galaysaa dabcan halkan sa ugu jeedo waxyaalo ayuu tig ku saaray oo halkan oo ads iyo waxyaalo badan aan tig saaran dabcan upgrade dhahna soo marka upgrade marka dhahne meeshan waxaana la keenay yani ama wuxuu noo soo saaray hadana in markaas business ama brand name inaan qorno sidoo kale website-keena linkiisa inaan gelino halkan waxaan gelinayaa linkiga website-ka aan waday sidoo kale halkan waxaan gelinayaa magacii aan kor soo gasho isla Somali tutorials inta markaas sameeyo luqadahan way saxan yihiin magaciina waan gashtay sidoo kale linkigiina waan gashtay waxa leeyahay next waxa uu dhahay intaan waa inaad mid ka doorataa oo select one ah yani category waxa aad ka hadlayso waxa markaas website-ka uu tusaale website-ka wuxuu ka hadlaa dalxiiska waxa dooran doontaa travel cuntooyinkii cabitaanada ka hadashaa kana dooran doontaa waxbarashada ka hadashaa kan design ka hadashaa hadii intaas uusan quseyno digital marketing waxaas ka hadashan waxa dhigi doontaa other طبعا أنا وحالها أذر أنت سوق لي وكذا مركو حمادام أذر على هذا وح عكاظ شو أنت سوق لي وكذا ديجيتال ماركتينج شو أم وحكر شو أم هيلث أفنس شو هيلث أفنس هو طبعا طبعا أنت كل هيلث أفنس أنت كل يرتو أيان دورت أنا سو مركو حسمينا ساعة أنت وحاله رهي جول كا أم هدف كا محوية أنا برتال بدن إيبسو أنا مركز ليدس يوربس أهشو إن ترافيك كان دورنا aniga traffic to your site inta marka dhadana waxa leedahay next ardayo fadlan muuqaalka ha ka xarin step by step ula soco inta marka amaadana wuxuu ku dhahay describe your business kaaga muxuu quseeyaa ma hubiya dhigi kartaa blogger adoo yahay consumer good product or service adoo yahay adi wuxuu yahay dooran doontaa ani waxaan dooran doonaa blogger hadii marka waxaan aad fahansirin waxa sameey kartaa ani aad ila soo kartaa waxa ani aan sameeyo ila sameey ama waxaan doortay ila door hadii aadan fahansan hadii qof fahansan aad taane jooskaaga kale blogger markaan soo doortay waxaan dhahay hadana next inta dana waxa ku soo qoran ads iyo xaalahaas xayeysiin iyo majeclaaleed ama macnaha xayeysiin in markaas maxaysiinaysa in xayeysiin iyo arrin garas iyo xaalahaas hadaa doonto waxaad dhigi kartaa yes hadaa doonto no hadaa doonto ani am not sure aan leh kadib marka halkaan sa u jeedo wuxuu ku dhahay waxyaalahan mid kalaam website
iyo show brand issue waxa la socdo marka waa iska cancel kartaa marka ama waxa dooran doontaa share ideas micnaheedu waxa laga wadaa inaa muuqaalka ku soo sheegay iyo image-ka ku soo sheegay iyo product-tiisi loo soo geliyo inta kan ayaa dooranaa marka ugu horeeyo ka marka taabto kadib waxa leeyahay next dabcan marka hadda wuxuu keenay meesha wax lagu soo gilgilay waxa soo keenay marka waa kana marka waxa tagaa business hub ka tagaa hadda marka sa u jeedo hadaay profile-kana sidoo ahaa iyo hadda sidoo yaa farqiga u dhaxeeyo hadaay marka meeshan waxay ahayd bis profile share iyo waxa hadda laakiin monthly views inta bishii views ah heshay oo markaas views-ka inta kala socota followers-ka waxaan hadaay ma arkin haddii rabto marka dhaqdhaqaaq inaad la socoto waxaad tegaysaa meeshan audience instead tegaysaa dabcan halkan waxaa kaaga muuqdo teeda kale waxaa jirto markaa ku asmaysan wuxuu noo diray verification email noo diray weli ma ana verify gareyn waa ilaa balaakeed oo muuqaalka dhamaadkiis aan kugu tusi doonaa si loo verify gareeyo waa iska fududa marka analytics aad tigi kartaa oo haddaad rabto review aad tigi kartaa tusaale review marka imaado halkan wuxuu kugu tusayaa waxyaalaha oo notus meesha ma ku hayno oo wax ma soo gelin Soomaa wali marka 30 maalin u dambeysay taariikhda dad inta ka bedeli kartaa marka 30 maalin u dambeysay waxyaalihii kula soo xiriiray wixii markaas oo waxaaga hadii all mobile ahaan wixii watay wixii desktop ama computer watay wixii markaas tablet watay dhammaan inta aad kala socon doontaa kuma si dheeraanay marka hadda waxaan ku baray sida loo sameeyo horta waan ku sharaxay Pinterest wuxuu yahay sida loo sameeyo ku baray sida profile-kaaga loo design gareeyo ku baray sida business hub loogu bedelan ku baray halka xaba marka harsana wuxuu yahay sida markaas wax loo soo geliyo Pinterest-ga dabcan muuqaalka waxaan kuugu soo dhameeyay Pinterest wax uu yahay wax dambe oo ka maqan oo meelaha ka raadi doonta ma jirto haddaba marka si wax loo soo geliyo waxa u baahan tahay horta marka hore waxa tagaysaa home-kaaga ama business hub-kaaga tagaysaa marka qaybta saan ay kuugu soo baxdo oo aad taagan tahay profile-kaaga ama markaas yacni home-kaaga waxaad tigi doontaa meeshaan ay ku qoran tahay create marka ay ku qoran tahay laba option oo ku soo baxayso haddii aad doorato create pin waxaad soo geli doontaa kaliya sawir infaanti haddii aad doorato create idea pin waxaad soo geli doontaa ama soo geli kartaa muuqaal hadda marka waxaan tijaabinaynaa create pin oo ku tusayaa create pin marka dhahdo waxa ku soo bixi doono habkan waxaan inaad buuxisaa laga rabaa the first one inta waxa soo gelinaysaa sawirkii markaas aad rabto inaad soo publish gareyso aan waxaan soo geli doonaa isla kan emtan ii saaran oo jiidasaaskeeda cafan waxaan soo geli doonaa kuwan oo marka aan soo dejiyay mid kamid ah image 4 oo kale ama image 3 oo kale dabcan kan oo kale soo gelinaysaa kan oo kale marka sida uu soo geliso inta waxa soo geli doontaa title ama markaas title-ka website-kaaga noqdo ama title sawirka oo hadlaysa ha noqdo aan waxba iska gelinayaa inta aan geli aniga halkan sawirkan description aa uga hadlaysa aad gelinaysaa description inta badan muhiim ah laakiin waad geli kartaa jooskadaas kale intan waxaad gelinaysaa add destination linkiga markaas aad rabto in la aado hadii sawirkan gacanta qofka uu dhacdo ama linkiga postigaaga ama linkiga website-kaaga ama linkiga affiliate marketing-kaaga ama linkiga Facebook page-kaaga ama linkiga YouTube yani YouTube-kaaga adu meesha aad rabto inaad keento traffic-ga ama dadka meesha inaad rabto aad keento linkiga ayaad inta geli doontaa dabcan sida aad u fahmayso anaad waxaan gelinayaa linkiga website-ka waan ku baastigeliyaa cafan sa ujeedo linkiga website-ka markaan geliyay sa ujeedo http://www.somaliusl.com aad marka linkiga aad soo gasho hadda kaliya waxaan ka tagnay description waxa doonta ka dhigi kartaa ana waxaan ka dhigaa kaliya hello aad description ama kan article-ka soo qaado ama ChatGPT ku soo sameey sida jeceshaa inta markaa sameyso before intaadan publish dhihin waxa ku haray inaad sameyso inta ayaa furaysaa
kadibna waxaa leedahay laakiin hadda wax kuma jiraan Soomaan create leedahay marka waxaa lahaa tusaale hadda YouTube-ka marka YouTube-kii aad soo gasho qayb playlist uu leeyahay playlist-kaas waxaa ku jira blogger ChatGPT SEO AI animation shorts waxyaalo badan ku jira Soomaan midka aad rabto dooqanaysaa kadibna wixii ku jira arkaysaa Soomaan hadda marka waxaa dooqanaa waxaa sameynaysaa marka qaaradihii aad kala gelileed tusaale waxaa ka hadashaa food iyo healthy iyo digital marketing aad kala hadashaa marka waxaa kala sameynaysaa 4 xabo oo kala ah digital marketing iyo waxaalaas wixii digital marketing hal meel isku geynaysaa wixii food ahna hal meel isku geynaysaa finally ina fahantaa rajeyna aan inta marka waxaa gelina hadda kan all demands tijaabo ayaan kugu siinayaa create وكريات جريس مواد طبعا halkaas uu jeedo waa create gareey sawirkan wuxuu ku jiraa all demands ku jiraa wixii kale all demands agal soo isku tagayaan title-kii description-kii link-kii sawirkii wax dhan ay haysaa dabcan kadib waxaa leedahay publish dabcan waa hadda woo publish gareysmay ama uu waxani profile-kan ayuu soo galay hadda marka meeshan cancel ayaa iska dhigi doontaa kadibna waxaad ka arki doontaa profile-kaaga halkii posti ama halkii sawir ee hadda aan soo gelinay hadda marka waxaan ku tusayaa haddana sida marka muuqaalka loo soo geliyo dabcan waxaa jirto horena aan kugu sheegay inuu inoo soo diray email verification oo aan weli aan verify garan dabcan email waa kana hadda marka yacni muuqaalka aan ka dhamaano oo wax dhan aan soo sharaxno kadib aynu verify garan doonaa insha Allah soo marka halkan waxaa ku jiro marka imaado profile-kaaga sida u timaado halkan waxaa ku jiro halkii posti aan soo gelinay marka dabcan oo ahaa ninka yacni ama all demand-ka sawirkii inta ayuu ku jira dabcan saa u jeedo hadda marka waxaa noo dhiman coverna sida u soo geliso inta ayaa taaban doontaa balaasta kadibna waxaad geli doontaa browser dhigi doontaa kadibna waxyaalaha meesha kugu jiro mid ka mid ah ayaad iska soo gashan doontaa dabcan anu waxaan iska soo gelinayaa kana soo gelinayaa kan marka sida u soo geliyo kadibna waxaa leeyahay done hadda sida u jeedo cover logo profile diyaarsan linkiga website-ka automatic oo ugu jiro sawirkii oo linki wato هذا فيري قفك مركو صور كان أركو هذا صور كان تصور على بس خلاص قفك وبحث توصل وحوالة وبسيط كاس مركا يعني اللينك أنا مش أنسو جديد هذا مركا وبسيطكو سأوجد طبعا هذا مركو حسمينا سا اللينك أردت قفك إنه قوس وبغض أي هل كان قشدون تاع دايركت اللي هو سيمبل أد وفول ده هذا مركا وحانود من قابكي مركز أنكو سميسا لهن هذا فيديو إن أنسو جديد طبعا فيديو شيء وصول جلس انت تابع دونتا هذا وحاتي دونتا ايديا بين مركز او تابعته وحاسو جلي دونتا فيديو مركز عربته طبعا انا هاد فيديو كمبيوتر ugu jiro laakiin waxa dhigi doontaa halka ay taaban doontaa drag and drop ku dhahay kadibna fiidiyash meeshan kugu jiro ayaa soo geli doontaa dabcan kan oo kale kana isku soo gelinaya waa kuwa markaas yani AI-ga oo aan sameeyay waay hadda kan oo kale soo gelina fiidyo caadi laakiin ugu jiraan waa AI-da aan ku sameeyay kan oo kale waa AI oo hadlaya markaas Welcome to our YouTube channel. dabcan inta marka imaado oo sawirka uu ku soo galo ama yani afan fiidyo markuu ku soo galo waxa laga rabaa asna title iyo inaad doorato meesha ku sheegay playlist-ga camal ah dabcan hal xabaan ugu jiro kaas oo ah all demand koo kala daartan waxa dhigi kartaa create inta markaas sameeyso hadana inta waxa laga rabaa tags يعني صوركو تاجس ملهن لكن كم وحوليه فيديو تاجس أقدر سكرتها سي مركز لو صور راديو وأنت كذي كان هذا مركو حسمينا سا ماشي وحجلنا سا تيترك على عرضه كدبنا أنت وحكي دور دون تعمد كأرت أنا كبيرسو أنت وحجلد دون تاجس هاشتاج أيالله هاي كدبنا وحالة هاي introduction أما intro أكلا خريسة soo marka waxyaalaha marka aad rabto inaad ku taageerayso ayaa inta geli doontaa hashtag-alada kadibna waxaad dhigi doontaa wax markaas yani hada weight loss weight fitness waxyaalahaas oo kale aad geli doontaa insha Allah hada title-kii iyo all demand-kii iyo wixii dhan waad gelinay kaliya markaas kadib waxaad dhigi doontaa publish
dabcan sida hadda u jeedo fiidiyoga waa uu soo galay hadaba marka dabcan fiidiyoga waa soo galay fiidiyoga wixii click garaya wixii save garasta wixii arka dhamaan waxa kala soconaysa impressionka clickta iyo savesta dhamaan inta kala soconaysa dabcan marka hadda wax noo haram jira marka afartii qodob ee halkaan aan ku soo xusay dabcan waa sameynay Pinterest wixii waa sharaxnay sida loo sameeyo waan ka hadalnay profile sida loo design gareeyo waan ka hadalnay business sida loo bedelo waan ka hadalnay sida video ama sawir loo soo geliyo waan ka hadalnay marka laba option aan oo dhiman marka labada option aan oo dhiman waxay tahay horta kow inaan kan verify gareeno hadda aynu soo verify gareeyo doonaa insha Allah dabcan sidaas aynu ku verify gareeynaa halkan waxaynu kala socon doonaa viewskeena viewska kale caadiga meesha laga hadlo oo laga socon ku sheeg analytic ay tii doontaa kadibna oo review ay si taaban doontaa halkan waxaad ka arki doontaa dhammaan 30 maalin u dambeysay wixii ku soo boqday halkan uu kugu digayaa oo wax hadda oo ku soo boqdo ma jiraanba soo marka hadda hal xabaan oo dhib marka kaasoo digniin ah marka digniin anu waxaan leeyahay ilaa iyo dhowr ciwaan aan leeyahay 3 4 aan leeyahay waxa jira mid kamid oo leeyahay xiray sababta leeyahay xirana waxay tahay waxaan sameeyay waxyaalo badan aan soo galiyay marka Instagram-ka waxaan ka soo dejiyay fiidiyoyaal markaas oo iscaateynta ka hadlayo dabcan iscaateynta marka waa soo galiyay marka soo galiyay dhowr fiidiyo حتى midkan laga xiraayo bishii wuxuu ii maray 60,000 views ii maray ilaa hadda ma aan soo celin waa iska mashquulsan insha Allah ana soo celi doono oo qaab loo hadlay leedahay process la maro oo markaas yani aad raadgelin ka bixinayso waxa sameysay marka hadii aan ku tuso adina aan kaaga digo dabcan maadaama wixii aan ku soo baray hadana wixii laga xir dhibaatada leedahay marka waxa sameynaysaa waa iska ilaalinaysaa sawirada aad leedahay waxyaalahaas oo kala soo gashi doontaa dabcan halkaas ugu jeedo waa ku tusi doonaa Pinterest iga xiran aniga marka Pinterest aad ku taabto user-kan oo saaraya ama Gmail-kan marka doorto kadibna aan ilaaho login markaan dhaw waxa ii soo qoray arag kamar ila fiir waxa ii soo qoray continue with Gmail طبعا markaas aad dhaw waxa ii soo qoray u jeeda Soomaan afan oo jeeda markuu wuxuu ii soo qoray your account has been deactivated oo dhaay marka waxyaalo badan la iga qabsaday oo community guidelines kamid ah sharciyan ku xad gudbay waxaan sameeyay wax dad ay leeyihiin soo galiyay aad marka sawiradaada waxa dhisan gareys wixii taleefanka ku jiro horta sawir la iskuul ma dhagabo sawir waxa xitaa Pinterest ku soo dejiyo ku soo celi waa caadi kun sawir maalinta soo gali kartaa laakiin fiidiyoyaasha dhiba ka taagan fiidiyo adalaan ama fiidiyo ta xasan da soo gali xitaa waa inaad qaada kanfa ageysa saaska aad soo bedeshaa laakiin inta badan ku dadaal waxyaalaha taleefanka waxyaalaha ka qaawan in lama ogolo sharci yani sharci u yaala kamid ah marka si aan laga xirin waa inaad ka taxadirtaa waxaan ka hagarsaday ama aan ka reebtay ma jirto saaxiib afar shay baan ku soo baray dhibaatada kala kulmi kartaan ku sheegay waxyaalaha la ogolaan ku sheegay dhammaan wax aan ka reebtay male marka maadaama waqti iyo dadaal iyo juhdi aan ku siiyay adana muuqaalkan xaqiiqsi oo la garay janaalkana subscribe garay muuqaalkana share garay marka ugu dambeynna waxaan ku leeyahay tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh